السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعانا wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Abdi Khayr soo dhawaada. Muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadan doonaa sidee ku heli kartaa guul wada tacajaa'ibteeda. Waxaad u baahan tahay ama aad danaynaysaa inaad heshid guul leh cajaa'ib, balse su'aasha hortaada taala ayaa ah sidee ku noqon kartaa qof noloshiisa ay tahay cajiib. Sirta ku jirta guusha cajaa'ibta kaliya wadata waxay tahay dadaalka. haddaad doonaysid guusha cajaa'ibta wadato waxaad u baahan tahay inaad fahantid wadada aad doonaysid inaad martid si aad u guuleysatid. haddaad fahantid wadada waxaa samayn kartaa guul cajaa'ibteeda wadata. dadka caqliga leh ama dadka raadsha wadada ay ku samayn lahaayeen guul waxay sameeyaan qodobadan soo socda. Number 1, fahan. waxay isku dayaan inay fahmaan wadada ay doonayaan inay qaadaan. inta badan wadada haddii aad iska martid adigoo aan fahansaneyn siday tahay waxaad noqon doontaa qof ku luma. waxaad u baahan tahay inaad fahantid meesha aad doonaysid inaad martid inay tahay meel burbura, inay tahay meel hagaagsan. waxa ay tahay inaad fahantid ayaad u baahan tahay. Number 2, raadin. waxa ay raadshaan ama baaraan waxyaabaha ay daneynayaan inay ku guuleystaan waxa quseeya kaliya. haddaad aragto waxay ka hadlayaan maanta dhan waxa ay doonayaan ama wadada ay doonayaan inay maraan siday u baari lahaayeen iyo waxa ku saabsan ayay raadinayaan. in badan ayay isku dayaan inay raadshaan. Number 3, joogtayn. waxa ay joogtayaan shaqada ay hayaan ama hawsha markaas qabanayaan ama waxa ay doonayaan inay ka guul gaaraan. kama tagaan, kamana caajisaan. xitaa haddii ay caajisaan dib u noqod ayuu ku sameeyaan, dib ay ugu soo noqdaan. Number 4, wax ka barashada guuldarrada. inta badan markay guuldareystaan waxay arkaan in meeshaas waxyaabo badan uga soo baxo, waxyaabo badan ay ka faa'iidaan, waxyaabo badanna way dareemaan. meesha qaladaad ka jira oo dhanna way garanayaan, sidaa darteed wax badan ay ka bartaan guuldarrooyinka. Number 5, quus la'aan. inta badan ma noqdaan dad hore ka quusta ama si degdega isku dhiibo yiraahdo alla ilaahay hawshan laguma guuleysan karo. quusta degdega marnaba ma lahan ayagu. waa dad aan quusan, waa quus la'aan, marnaba ma quustaan. Number 6, hammi sare. qofka marka uu doonayo inuu guuleysto waa inuu hammi sare leeyahay. hammigaaga sare wuxuu kaa caawin karayaa inaad noqotid qof ku guuleysta nolosha qaybo badan oo ka mid ah. hammiga sare ama rajada sare waxa ay tahay waxay kugu dhiirigelinaysaa shaqadaad qabanaysid inaad sii laba jibaartid si aad u gaartid guusha aad hadda joogtid guul ka weyn. guusha waxaad ku heli kartaa hammigaaga iyo rajadaada toosan iyo dadaalkaaga. Number 7, dhaqdhaqaaq. inta badan ma noqdaan dad iska jooga ama shayga ka caajisa ama meel iska fadhiya. waxay yihiin dad dhaqdhaqaaq sameeya ama cilmi baaris sameeya ama noqda dad raadsha waxa ay doonayaan inay qabtaan. inta badan waxay saaxiib u yihiin dadkaasi inay noqdaan dad shaqo. Number 8, isku day badan. in badan waxay sameeyaan isku day. mar walba oo aragtid waxay sameynayaan isku day aad iyo aad u badan. ma ahan dad quusta, saan kuu sheegay waa dad dhaqdhaqaaq badan. kama daalaan inay in badan isku dayaan. in badan ay isku dayaan, in badan ayay dadaalaan. dadaalkooduna ma noqdo mid fashila ee wuxuu isku bedelaa guulo waaweyn. haddii aad doonaysid inaad guuleysatid shayga aad doonaysid inaad ku guuleysatid waa inaad in badan isku dayda. xitaa haddaad ka caajisto, xitaa haddii aad muddo ka maqnaato, mar kale ku soo noqo. ogow shayga aad jeceshahay inaad guul ka gaartid waa inaad in badan ku dhex jirtaa, in badan waa inaad isku daydaa. Number 9, ka fogaanshaha waxyaalaha maalayacniga. inta badan ma arkaysid ayagoo meelaha dooda micnaha leh jooga ama waxyaabaha micnaha leh ku mashquula. waxaad arkaysaa ayagoo ku dadaalaya sidii ay u noqon lahaayeen qof guuleysta. guushu ma ahan mid lagu helo maalayacni ama fadhinta meelaha aan wanaagsanin. waxaa lagu helaa guusha dadaal, rafaad iyo waqti badan oo kaa baxa. haddii aad doonaysid inaad guuleysatid waa inaad ka fogaataa waxyaabaha maalayacniga. Number 10, lahaanshaha kayd. micnaha waxay leeyihiin dad dakhli ama dakhliga soo gala ama waxba u meeligtaan wixii soo gala intooda badan kuma baxshaan waxyaalo maalayacniga. waxa ay ku dadaalaan inay ku baxshaan
meel wanaagsan si uu uga soo baxo biri ka maalin. waayo kaydku qofku wuu anfacaa. haddii aad doonaysid in noloshaada aad ka dhigtid mid cajaa'ib leh, guulahaaguna ay noqdaan kuwa cajiiba, waxaad u baahan tahay inaad joogtaydid 10kan qodob. sidee haddii aad doonaysid shay marka koowaad waa inaad fahantaa. horta fahan waxaad rabtid inaad qaabatid, raadi oo baar, joogtayn samee oo mar walba joogtay, wax ka baro guuldaradaada, quus la'aan noqo, qof aan quusan iska dhig, hami sare yeelo oo qofku markuu hami iyo rajo wanaagsan leeyahay shayga kama tago, dhaqdhaqaaq samee. xitaa haddaad guri joogtahay xaafadaha ka tag, magaalada soo wareeg, meelaha aad, waxaad noqon doontaa qof fikir cusub iyo rajo cusub la soo noqda, kulana soo noqda meesha uu ka tegay. isku day badan samee adigu inaad shayga isku daydid, mar walba isku day, ku celceli, wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa. Number 9 ka fogaanshaha maalayacniga ka fogaatid waa wax adiga dan weyn kuugu jira. Number 10 lahaanshaha kayd inaad yeelatid waa muhiim, ama mid muraajaca ha ahaado, buugaag qorta ha ahaado, waxa kugu soo dhaca qorta ha ahaado, ama ha ahaado mid maal oo jeebkaaga inay wax ku jiraan ha ahaado, si aad uga kaaftoontid inaad dad baraysid, xitaa dad la macaamilaysid, habdhihin waxaad tiraahdaa hawshaas ii qabo, waan iska yareeran karayaa haddii Allah subxaanahu wa ta'ala yiraahdo. waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad wax badan ka faa'iiday. fadlan daan ugu cusubtaan ugu soo biir ka mid noqo walaalahan bartan ku midownay. mahadsanidin. hada billahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.